mootooyinkaasi ayaa iyaguna ku dabaaltegayaan oo waa qaybo kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybahaasi mootooyinka iyaguna waxaana ilaali doona mardhow hub iyo waxyaalihi kala duwanaaha ee soo maray ugu duwan oo gawaadhi ay hidayaan ayaa halkaasi ku soo dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haatan waxaa lamay hubka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu adeegsado daafacaadda dadka hooyo cadawga Soomaaliyeed sharka iyo halaaga baaba'a uu ku baday ee cadawga Soomaaliyeed u dilay in uu taaga kamid ah dadkeena u soo xadgudbo gawaadhi ayaa jiidaya hubkaasi hubku aad iyo aad ayaa u noociyay وينونا si aad iyo aad ay ula dhacayaan marka ay arkaan ciidamadoodii xoogga dalka Soomaaliyeed halkii ay adeegsanayeen ay daafacaad dalka hooyo adeegsanayeen kala duwan oo halkan lagu soo bandhigay oo qof wal oo ka tirsan kaasi hayraha kaga gadaaman gegidaasi ay din arkaan ayaa shuuriyay ay ku taagaysaa shucuur wadanimo gawaadhida ay din arkaan waxa ay kiiyaan hubkaasi madaxda wax laysa eegmaada cadawga ayaa loogu talagalay cadow kasta oo dalka Soomaaliyeed u saaxiibaa in lagu baabiyo waa nooc kale oo iyaguna gawaadhi kale oo hor oo iyaguna jiray madaxda kala gadisan dadweynaha ku daaman hareeraha ka duwan ee gaadiidkan ay soo marayaan ciidamada qalabka gaar ahaan xagga dalka Soomaaliyeed qaybihii ugu dambeeyay waa hubka waxa ay yihiin qaar aad iyo aad u faraxsan sida يعني ورثنا هذا كان عندما تحوق ذلك الصوماليين أي أقوم مسيان هنا أي ديار كوين دافع هذا ذلك هو يجوا أديكتنا يهو باتي عصر جيم مدافع أي دين أركان أي كليهين أي كليان هو هذا شكل جديد أروح إليه قارا فرطاي قار نوع وقوائد أركان قار وأكبر قار هو أكبر ولما الدواء waxaad aragtaa in ay soo daba xiriirsan yihiin hubkii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaa iyo halka uu ku dhamaado laamiga ee aragtaan ay soo daba xiriirsan yihiin waa qayb kale oo ka tirsan hubka halkan ay soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan hubka roobka loo yaqaan waa hubka meel fog wax ka dilaha ee baabiya cadowga hubkiisa ku gubay baabiya ku walaciya وهم أدركان يسقوا هنا ويهم بديه أو تسليم ثم تسياج أخرى وأنا أقول لك تسياج أخرى أو هذا أي ملها أكبر بيا وكل بيا وياها فراها بدن ما تساوت هذا كله في الجريمة هذا أي مركي أي أركان هم فراها بدن مرة يا إذا ما تفعل ذلك ثم هذا كذا فعادة له يقول يا أخي وأنا كسرت هاي يقول كذا صعدا ما قلنا وهبka ay aragtaan oo mid walaha oo la socdo sarkada xoogga dalka Soomaaliyeed qayb kale ayaa soo bilaabmay oo tirsan hubka xoogga dalka Soomaaliyeed u adeegsado hawlaha daafaca dalka sir iyo dhulba waxa ay kuwa lagu la dagaalamo diyaaradaha وهبكا إسقوا صودا زيارها سوحة بهودا جمهورية الديمقراطية الصومالية وما هذه أيضا أركان أي سؤال عن حفظ كذا لو هي صودا كذا زيارة غالبا شيء ذي لكن لسه زيارة وادي شيء ذي مع واقع معنا هو أنا أفضل شيء بيجو qayb kale oo hubka kamida xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyagu soo loo gawaadhi karo lix taagi ay jiido kuwaasna waxa ay saamanka waa tawaariikhda iyo lidka diyaaradaha ee soo baxda iyaguna
diyaarada arkaysa tawaariikhdan caaradada ayaa soo xiriirsan in ay ku soo xiriirto hawada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ciidan uu u dhan yahay qalabkii oo markiisina in aragtaan waxa ay yihiin kuwa lagu badbaadiyo diyaaradaha xadgudubka soo sameeya weli iyagii baa socda dadweynaha si aada ayaa ay daawanayaan oo ay ula socdaan diyaaradihii ahaa idin aragtaan oo iyaguna socda diyaaradaha iyagoo raxan ah ay qayb qaadanayaan waa afar diyaaradood ay haysaa lababa dhan ay kula socoto laba way taagan yihiin labana qareeraha ayaa ay ka socdaan diyaaraduhu si aada ayay ugu qayb qaadanaysa baarlika waxaa soo bilaabmaya qaybo kale oo ka tirsan jireeyada iyo xajiyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee markaas ay ugu galaan cadowga dadkiisa ay ku qaadeen saasiya dalka hooyo gaar ahaan cadowga uu ugu galo gudubka uu ku jiro walba waxaad aragtaan in uu hogaaminayo nin taliye ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya dabaaldeggan 22 Oktoobar gegidaas ay raadaan loo sameeyay badbaadiyaha ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo daraad ay ka sameeyaan doorashada ayna diyaaradaha oo inta ay qabanayaan dadka haddana waxaa soo muuqda dabaaldegii waa kuwa iyaguna qudbaysyada iyo aagaga hore ee cadowga markiiba inta ay galaan baabi'iya ee cabdaadugaha ka dhigan waa noocad iyo kale oo cusuba ka dhisan qalabka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kaarayaasha dadku xeeraha ayaa ay ka tagay gegida iyadoo oo ay daawanayaan si aada ay ula dhacdeen kaarayaasha dabaabadaha iyo reeyada halkan maraya ayaa uu ku ganawa hareeraha iyo meel kastoo kale waxa uu ku leeyahay meelo ka danawa walba waxaa ku taagan oo hogaaminaya aga wararka biya aga wararka biya oo iyaguna qalabka duubista maanta halkan hubka kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan beebeeyada taangiyada iyo dabaabadaha qaybahan waa dhamaadeen haatan waxa soo socda kuwa silsilada lahaa oo ah taangiyada dabaabadaha weeye oo kala nooc cid waliba waxay leedahay hawl gaar ah qayb walbana waxaa lagu qabtaa oo ay daafac iyo weerarba ay ka gashaa hawlo u gaar ah dadka iyo arrimaha kale ee weerarka saacada lahaa meelayo badan ee ay ka dhigaa tani wax cadowgana markay doonto waqtigiisa bay ku gashaa walba taliyaheeda ayaa hogaaminaya diyaaradaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ka qayb qaadanayaan
diyaaradaha waa in aragtaan sida ay u dhammaataadayaan saddexdaasi diyaaradaha kaan ah dadweyne aad ugu helayaan marka ay marayaan xoogga Soomaaliyeed intii kalena oo gaar ahaan dadweynaha kale arqada ay iyagoo muujinayaan iyo sida kartida ay u leeyihiin inay u dhammaadaan hawada Soomaaliyeed sida ay doonaan cadowgana ay ka yeeyaan diyaaradaha waa diyaaradaha وانا وفيه فرعي او اها اذا ما يجرى يا هذا الشيء كذا كان فيها صاريات وانا هو ترتيب جارها كل شيء لها قلت وانا يقرب ولا ايات اي انا ابى اكل يعني ارجع هي بعدين حاجه kala duwanay xagga tiknikada gaar ahaan dabaabadihii ayaa socda ilaa cadowkani arkaya ayaan u soo hamadoodeen aadka intoo hiisaceen in uu dalka Soomaaliya lagu qaado weerar dalka Soomaaliyeed kuwooda tiknikada kuwoodii cirka ahaa iyo qayb waliba way ka qayb qaadanaysaa dabaaldega magaalada 22 Oktoobar iyagoo dadweynuhu aad ay ula socdaan oo la dhacsan yihiin martiyaha ka dhacaya maha weli waxaa socda kuwoodii dabaaldega inta taliyaha ay hogaaminaya waa u diyaar ah سيارة قراها حسبك جمهورية كعب Soomaaliyeed كالسياد كالسبكر كالكلية كالأحد سليمان عبد الله هي أسكانتي جمهورية القادمة Soomaaliya هي سوق أو أدركان مقالة كان سوق بدقي ذات فنانين تفتحها كنا أي سوق بدقي مع كلها هريرة هي أساميه وبدأ بشدة أنا الله بطل قال يتغذى أفريقيا نادي عرسة كعان صوبي الله بعد الصوب كنت قال بقول إسرائيل كان قادة الجمهورية الديمقراطية الصومالية dadweynuhu fagaaraha kan maanta aydin aragtaan daawadayaal si aadaha ayaa ay u daawanayaan waxyaalaha ay ku soo bandhigayaan halkan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybihii kaleba haatan ayaana iyadoo oo uu maaday fantasiin ku diyaarinaya sidii madaxweynuhu ugu ambaxay lahaa ee gabadha uga ambaxay lahaa kadibna madaxda kale kadibna dadweynaha ciidamada ajnabiga bank ayaa u diyaar ah talaantii بعدي داوني فانتسيها بالدقة كودية 20 هنا تلميذ الديمقراطية الصومالية سالم محمد يقر أو سلامي مدحدي سري كتب سنين تحقيقية دولة دباء أي وليان مدحدي كلا مدينة بحيث الحمية هي مدحدي كلا فكرة السيادة وحا وكدقية هذا من سلانة تبوكها إجابة سعوداء الزالي لو كلا قريب فانترتيه كدب ومركي أولمالي أيا أيدي عجان إيادو مدحوين ويوشي إيادو هذا الزوقي لغا أبيح لها إيادو برنكيري فانترتيها إنتا سيئة كل معي مدحوين إيادة السيادة هي مدحلة كلابا هذا وحا أي قوام بحي يعني halkii baa ay faraay lahayn madaxdii kale oo ku tagotinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya qodobada mid ku jira dowladda Soomaaliyeed salfiyad salfiyad oo baa furay hada waxa lagu leeyahay in uu dhaqaaqo baabuur madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo fantasiyaal intaadii ay ku dhamaadeen madaxdiina ay sii tagotinaysa madaxweynaha dhaqaaqay
gaarigii ayaa dhaqaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo caalamka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya uu ka badanayo waa aydin aragtaan madaxweyne Jaaladiyaad iyo madaxdii kale oo socota intaasina uu ku dhumaaday kamarkii loogu talagalay qaraha 22 Oktoobar 1983 dadweyne aad u fara badan oo kumanaan ah ayaa ka soo qaybgalay maanta gaarahan 22 Oktoobar sanad guurada ee Soomaaliya wadada gacanka 22 Oktoobar 1983 iyadoo lagu soo bandhigay qoraallo fara badan iyo sawirro fara badan oo lagu sharaxay goobta qaraha 22 Oktoobar waa ciidamadii muusiga garaacayay oo haatan iyaguna aan babaxaya